السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي waxaan wanaagsan asxaabta qaaliga ku soo dhawaada channelkayga Leila Kitchen. maanta waxaan idila wadaagi doonaa sabaayad. waxyaabaha ay ka kooban tahay sabaayadan sameyn doona waxaa ka mid ah waa 2 koob oo bur ah in xagaa ku haysanaa. koob ayaan kusoo shubanay, kii labaadna waa aniga ku shubay. hadda waxaan ku dari doonaa subag, 1 malqacad oo subag aan ku daray, mid kalena waan ku daray sidoo kale malqacad iyo saddexaadna waan ku daray 3 malqacadood iyo 2 koob oo bur ah ama daqiiq qof soo yaqaan oo ay ka kooban tahay. hadda waxaan ku soo darsanayaa biyahayga diiranaa ee qandac ahaa. aadna uma kululeynaysid, aadna uma qaboojinaysid. taasi waxay ka caawinaysaa inay daqiiqda ama cajiinkaagu si fiican isku dhex galo, si fiican hadhow kugu dimo. hadda waan isku soo qasay. qofkii raba milix wuu ku darsan karaa, sonkor wuu ku darsan karaa, wuxuu ku darsan karaa xabaasuud, huruud, qofba siduu u jecel yahay. laakiin anu maanta waxaan soo sameynayaa intaas daqiiqa iyo 3 malqacadood subaga uma isku darayaa. waxay iga caawinaysaa inaan ku cuno khudradda, suqaarka, kalluunka, waxyaabahaas oo dhan, fuulka, harkooga. hadda waa soo diyaarsaday. sidaas ayaan cajiinkii kusoo dhameeyay. maasha allah tabaaraka raxmaan. aado rubuc saac meelahaas ayay taalay. kadib aniga dib baan la soo noqday. hadda aniga halkaasaan usoo diyaariyay mar kale. waxaan sameyn doonaa haddaynan bilowno sameynteedii oon jarjarano. hadda aniga saa usoo diyaariyay, saa usoo dheereeyay. kadib waan jarjaranaynaa 6 qaybood ayaan ka dhigan doonaa insha allah. adigay kugu xiran tahay inta aad u baahan tahay adiga qoyskaagu. maasha allah saasaan soo jarjaran doonaa. waa soo burburi doonaa ama goobo ayaan ka dhigan doonaa. xoogaa 6 midh ayayna noqotay. hadda inagaas waan soo qaaday, waxyara daqiiqan ku daadiyey, waa aan fidiyey. maasha allah tabaaraka raxmaan. sidaa fiican bay kuugu fidaysaa markaad si fiican u xeshto. hadda waxaan mariyay subdadii. qofkii raba saliid buu iska marsan karaa. waka maasha allah tabaaraka raxmaan. tii labaadna waa soo fidiyey. saasaan dhammaantood kusoo wada sameynayaa, aan usoo wada fidinayaa siday u dhan yihiin. waa aniga soo wada fidinay intiiba 6 midh waan soo fidinay. haddana dib baynu u fidin doonaa si aynu daawaha u saarno ama aynu u shiilno ama aynu u dubno. anaga daawahii baan nimi, waan dubaynaa. haddaba markaad dubayso waa inaanad dhinacuun ku daynin. kolba dhinac waa inaad rogtaa, kolba dhinac. waxay kaa caawinaysaa inay kaa guban. dabkana waad iska naaqusaysaa inay kaa guban, saliid badanna kaa qaadan, si fiican ay kuugu samaysanto, adigana ay si fiican kuugu samaysanto si aad cuntadii aad doonaysay ugu cuni karto. imika tii labaad ayaan soo sameynay. maasha allah tabaaraka raxmaan. waa kaas si fiican ayay imika inagu socotaa hawsho. waa kaas maasha allah. kolba dhinac baad rogaysaa. in yar saliidda wax yar waa inaad ku dartaa, ha ku badanin. sababtoo ah marka keliya la cunayo iyo marka kale way kala duwan tahay. marka waxaa lagu cunayaa cunto. imika kale anagu suqaar baan ku cunaynaa. suqaarku markiisa horeba isagaba waxaa lagu darsadaa, wuxuu leeyahay qoyaan. sidaa darteed qoyaan uma baahna imika iyado. sidaasaad ku sameynaysaa. maasha allah tabaaraka raxmaan. aadna uma sii casaynaysid, aadna cadaan uma dhigaysid. waad bislaynaysaa, yani si fiican oo bisayloo yacni aad cuni karto ayaad ka dhigaysaa. wallahi ilmaha si fiican bay kuugu cunayaan. maasha allah tabaaraka raxmaan. caloosha kama qabanayso, calool istaag kuma sameynayso. sababtoo ah ma hadduu cajiinku aad uu u buuran yahay ama uu aad maxay ahaaday aanu u xashmin oonad khafiif ka dhigin, marka socorta calooshay qabtaa. laakiin mar kasta oo aad khafiif ka dhigto waa mar kasta oo caloosha qabanaynin.